wafdiga hoggaanka sare ee dhaqdhaqaaqa Xamaas oo uu hogaaminayo Khaliil al-Haya ayaa ka badbaaday weerar Israa'iil ay ku qaaday magaalada Dooxa ee dalka Gadar ama Qatar sida ay sheegeen ilo ku dhow Xamaas. weerarkan ayaa dhacay xilli wafdigu uu ku sugnaa xarun magaalada Dooxa ku taala iyaga oo ka wada hadlayay hindise uu soo bandhigay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ku saabsan xabad joojin laga gaari lahaa colaadda Gaza. duqeynta ayaa sababtay dhimashada dad ay ku jiraan xubno sare oo ka tirsan Xamaas inkasta oo qaarkood ay badbaadeen. dadka dhintay waxaa ka mid ah Khaliil al-Haya wiil uu dhalay iyo Jihad Lubad oo ahaa agaasimaha xafiiska Khaliil al-Haya. Khaliil al-Haya waxa uu ahaa hogaamiyihii bedelay Ismaaciil Haniya ee lagu dilay magaalada Tehran ee dalka Iran. al-Haya ayaa hadda hogaaminaya madaxda sare ee Xamaas kuwaas oo ka wada hadlayo arinta xabad joojinta. hase ahaatee isaga wuxuu ka mid ahaa raggii badbaaday inkasta oo wiilkiisa uu geeriyooday. wasaaradda arrimaha gudaha ee Qatar ayaa sheegtay in codadka qaraxyada laga maqlay magaalada Dooxa ay ka yimaadeen goob deganaansho oo lagu bartilmaamaysaday xubno sare oo ka tirsan Xamaas. wasaaraddu waxay intaasi ku dartay in kooxaha amniga ay xaaladdu hadda gacanta ku hayaan ayna ku baaqday in dadka ay ka digtoonaadaan warar aan rasmi ahayn. goor dhoweed war ka soo baxay Xamaas ayaa lagu sheegay in 6 ka mid ah shaqaalaha Xamaas ee kulankaasi ka qaybgalayay la dilay, hase ahaatee madaxdii ugu sareysay ay badbaadeen. dhinaca kaleetana isla wararkaas ayaan ku nagaanayaa ee dowladda Gadar ayaa si xoogan u cambaaraysay weerarkaas Israa'iil ay ku qaaday xarumo hoy u ahayd xubno sare oo ka tirsan madaxda Xamaas. wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar ayaa ku tilmaamtay weerarkan mid ah faldambiyeed iyo jabin cad oo ku saabsan dhammaan xeerarka iyo shuruucda caalamiga ah, isla markaana halis weyn ku ah ammaanka iyo badbaadada muwaadiniinta iyo dadka ku nool dalka Qatar. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Dr. Majid al-Ansari oo war qoraal ah ku baahiyay baraha bulshada ayaa sheegay in dowladda Qatar aysan marnaba aqbali doonin falalka nuucan oo kale ah, isla markaana ay si buuxda u difaaci doonto madax banaanideeda iyo amniga guud ee dalkeeda. wasaaraddu waxay intaasi ku dartay in baaritaano heer sare ah ay socdaan, isla markaana la shaacin doono wixii faahfaahin dheeraad ah marka ay diyaar noqdaan. dhinaca kale militariga Israa'iil ayaa shaaciyay in bartilmaameedkooda uu ahaa hoggaanka sare ee Xamaas oo ku sugnaa magaalada Dooxa. isha xogogaal oo ka tirsan Xamaas ayaa Al Jazeera u xaqiijiyay in wafdigaasi ka socday Xamaas ee ku sugnaa magaalada Dooxa ay ka arinsanayeen soo jeedinta madaxweynaha Mareykanka ee ku saabsan xabad joojin lagu gaaro marinka Gaza. dhinaca kale adduunkii gaar ahaan dunida carabta ayaa iyaguna warar kala duwan soo saaray. dalal carbeed oo badan ayaa si weyn uga horyimid ama u cambaariyeyba weerarkaasi culus oo ay ciidamada Israa'iil maanta ku qaadeen guryo la sheegay inay deganaayeen hogaamiyaal ka tirsan ururka Xamaas ee ku yaala caasimadda Qatar ee Dooxa. Sacuudiga gaar ahaan dhaxal sugaha Maxamed bin Salmaan ayaa qadka telefoonka kula hadlay amiirka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani isagoona u xaqiijiyay taageerida buuxda ee boqortooyada Sacuudiga iyo inay cambaaraynayso weerarkaasi Israa'iil. wuxuu tilmaamay in Sacuudiga diyaar u yahay inuu ka caawiyo Qatar ilaalinta ammaankeeda. boqorka Urdunna Abdallah ayaa sheegay in ammaanka Qatar uu yahay mid ka mid ah ammaanka Urdun, isagoo ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo weerarada. wasiirka arrimaha dibadda ee Urdun ama Jordan ayaa weerarkaasi ku tilmaamay mid ciil badan oo u baahan in beesha caalamka ay ka hortagto. dhinaca kale la taliyaha madaxweynaha Imaaraadka Anwar Qarqaash ayaa ku sheegay baraha bulshada in ammaanka khaliijka aanu kala go'in, isagoo cambaareeyay weerarka Israa'iil. wasiirka arrimaha dibadda Imaaraadka Abdallah bin Zayed ayaa isna muujiyay taageero buuxda oo ay u hayaan Qatar. labada dal oo kala ah Kuwait iyo Cumaan ayaa iyaguna si adag uga hadlay weerarka, iyagoo ku tilmaamay inuu yahay xadgudub weyn oo lagu sameeyay xeerka caalamiga ah iyo madax banaanida Gadar. ugu dambeynna Falastiin, Masar, Suuriya, Ciraaq, Lubnaan, Algeria, Morocco, Suudaan iyo Yemen sidaas si lamida Soomaaliya ayaa dhammaantooda si kulul u cambaariyay weerarkan.
madaxweynaha falastiin iyo mas-uuliyiin kale ayaa sheegay in weerarka uu yahay ku xadgudub sharciyadda caalamiga ah. xogayaha guud ee golaha iskaashiga khaliijkana jasim al badiyaawi ayaa cambaareeyey ficilka israa'iil. ugu dambeyntiina xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guterres ayaa isna si adag u cambaareeyey weerarka israa'iil ay ku qaaday madax ka tirsan ururka xamaas oo ku sugnaa magaalada dooxa, isagoo ku tilmaamay in weerarkan uu yahay ku xadgudub cad oo ku saabsan madax banaanida iyo amniga dalka Gadar. Guterres ayaa sidoo kale ammaanay doorka muhiimka ah ee Qatar ay ka qaadatay dadaalada lagu joojinayo colaadda Gaza iyo sii deynta dhammaan maxaabiista, isagoo dhammaan dhinacyada ugu baaqay in la gaarsiiyo xabad joojin waarta oo aan la carqaladayn. dowladda Turkiga ayaa iyaduna sheegtay in weerarkan uu muujinayo istiraatiijiyad argagixiso iyo ballaarin oo Israa'iil ay ku socoto, wuxuuna ku baaqday in la joojiyo falalka nuucan oo kale ah. wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa iyadana ku tilmaamtay weerarkan faldambiyeed iyo xadgudub khatar ah oo ka dhan ah wafdiga Xamaas ee ku sugnaa magaalada Dooxa.